waxaan halkan isugu nimid annagoo ah bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed qayb walba ka kooban inaannu dareenkanaga ku muujinno dhacdadii ka dhacday xamar ee lagu wareejiyey halgamaagii Soomaaliyeed Cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida Soomaaliya laguna wareejiyey cadawgii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa taasaannu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxaa weeye Cabdikariin ha la soo celiyo dalabkanagu intaa weeyaan dawladda ka codsanayno waxa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan waxaa raalli kama nihin bulshada Soomaaliyeed raalli kama aha waxa weeyaan oo anagu aan doonina oo Soomaali doonaysa dhammaanteed in aanu noqono dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintana aan lagu xadgudbin waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas'uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ay ku kaceen sidii ay ugu kaceen markii hore u galeen inay ka bedelaan oo soo celiyaan muwaadinka ujeeddanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan walaal anaga Cabdikariin Sheekh Muuse waxaa la dhibay isniintii in Muqdisho lagu jirdilay meesha fiisada Itoobiya loo sameeyey oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay Cabdikariin in la dhiibay xaqiiqatan muxuu yidhi anigu muwaadin Soomaaliyeed ahay ummadda Soomaaliyeed saahay la dhaqmin dilya nololba waan galaay waa la jirdilay waa la kaxeeyey rag Soomaaliyeed oo madax sheeganaya la kaxeeyey eeraboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyey raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray Uganda isbaa loo dhiibay xalanaana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo muwaadila tallaay Soomaaliyeed farmaajo qabtay oo intuu qabtay ilmihiisa moo garabko waxaa aragna cadaabay nasweesho